dadka muslimiintu ilaahay macrifadiisa iyadoonan qalbiga galan haddaynan qalbiga macrifadu aynan degin waxaad arkaysaa qofkii isagoo qur-aanka yaqaanaa oo salaadiina aan tukan karayn ma dhacdo kuwa maalin qayilayo iska barjeynaya waa kan jamaacaddu dadkay ziyaartaan ma ogtahay ayaan u gallay fiican bay noo soo dhaweeyeenoo BBC iyo raadiyoogana way baktiyeen oo wayna dhageysteen markaan u yar dhammaynay wacdigii een idhi dee fadhiguna kala fiicane masaajidkeenna mariyo naya raaca mid baa gacanta taagoo yidhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa soo diray waxa lagu yidhina maad maqasheen buu yidhi markaasaan aamusno kuwii la barjeynayay baa yidhi war ninkani waa jaamiciyo waxbuu inii kordhina ka dhegaysta haye noo kordhiyo jaadka uu takhsiisan yahay sigaarkana nebiga waxa lagu yidhi maad maqasheen bal noo sheeg fadakir inamaa anta mudakir lasta calayhim bimusaytirin ilaa man tawallaa wakafar hadalkaa ka warrama dadka waani baa nebiga laga yidhi aduu waaniye uun baa tahay diinta dadka qasabka ka dhigaya ma tihid nebigii baa sidaa lagu yidhiye waad noo sheegteene qasab ha nagaga dhigine iska socda markaasay kulligood yidhaahdeen ninkaas sheekhaygu waa ninkaas shaydaan baa sheekhiina aqoontii uu hayaa laakiin taqwadii baa hoos u taalla iimaankii baa daciifa annagoo jawlad bari soconna baa nin u tagnay soomaaliya oo la yidhi ninka waa soomaali waa nin meel fadhiyo khamri cabbaaya wadannada gaalada markaasaan u tagnayo asalaamu calaykum markaasaan calaykum assalaam xaggeed ka timaadeen meesha ma miskiid baa meesha salaamu calaykum tadna leedihiin buu nagu yidhi maye dalkii baan ka imanno qaaraddii afrikaan ka imanno ininkaani soo buuqanno inaad miskiidka noo raacdaan doonayno miskiidka ah diinta ayaa ni baray ninka buu yidhi diinba ma taqaanaane sawka ilaahay yidhi maa laa taqrabu salaata wa antum sukaara xataa taclamuu maa taquuluun nin sakhraana oo aayaddu daliilinaya eg macluumaadka uu hayaa laakiin yaqiintii iyo iimaankii baa daciifa markaasaan ku nidhi laa baas na raac sidaa nagu raaca ima raacayo na raac jamaacadda intii kalaad soo salaamaya na raac ilaahay fadligii ninkii sidii buu nagu soo raacay jamaacaddii buu la dhagaystay habeenkii buu nala seexday subaxdii markuu kacay ee khamraddii ay ka bacday uu arkay miskiid laga dul eedaamayo uunbuu telefoon qaatay oo wuxuu yidhi uun ayaa meeshan i keenay ii sheegay buui waan xidhibe booliis baan ugu yeedhayay waddankan haddii booliis lagugu yeedho waa khalaas waa lagula tegi uun markaasaan idhi aan cidba kuuma yidhi naga raalliha waa iska socow bas iska socow markii dambe raggii noo sheegeen waxay nagu yidhaahdeen ninkaa waddanka markuu soo galay caalim buu ahaa weliba masaajid waddanka ku yaalluu imaamka ahaa bay nagu yidhahdeen maantana dariiquu khamriga ku cabbayaa macluumaadku waa shay waa gooni iimaankuna waa gooni weeyaan ummaddu maanta iimaanka hoosu yaalla iimaankeena inaan kor soo qaadnaan u baahannahay markaas sidaa darteed bay saxaabada rasuulku inay iimaanka bartaan oo iimaankooga badbaadiyaan wax walba way ka doorteen wallaahi wax walba way ka doorteen